dacar buruq marka ay maskaxdaada ku soo dhacdo waxaad xasuusanaysaa dooxii halista badnaa ee galaaftay nafa badan iyo hantidoodii. waxaan waa dooxyada ugu biyaha badan leh mara gobolka Murudijeex. waxaan nagu soo martay mararka qaar in lagu umulayba. waxaan nagu soo martay mararka qaar dad kooma ku jira waxay noqonayaan dadka ku dhintay ilaa wixii igu leeyahay aan arkay waxay haayeen gaadiidka qaran ismarkii saadaad kugu yaraade ee mara oo had iyo jeer qaado oo khasaaraha gaarigii cidii lahayd iyo cidii ganacsatada ahayd u raraa labadiba khasaaro ku dhaco. waxa igu xasuusta badneed waxa ahayd maalintan halkan ka joojinay niman lo wada oo sawaaqiina oo laba nina ay doonayeen inay dooxa geliyaan lo'dii ay ku tallaabiyaan inay leeyihiin waxa weeyaan way dabaalanayaan lo'dan. qaar baa iyagoo fooranaya oo dhakhtar lagu wado waxaan ku yiri halka joojin jiray. qaar baa iyagoo jooga foosha ku qaban jirto lagaga umulin jiray meesha dooxan agtiisa halkaana qaar baa lagaga umuliyay halkaana qaar baa lagaga umuliyay oo dhakhtar lala gaarayo oo kooma ku jira ayaa halka waxaan ku guri dhiig bax ugu dhiman jiray. waxaanu ahayn baabuurta waaweyn baan wadanaa oo biriishka baqdintiisu lahaa markaan marayno dhibna uu nagu ahaa daaki fara badan iyo baqdin fara badan baan kala kulmi jiray oo nin hanti fara badan sida baan ahay si aan dadka lafooga u badbaadino laba xalig baan xili jirnay oo heegan baan ahaan jirnay dhibaato badan oo jirtay rag baan nagala dagaalamay xataa meesha oo la jiiray ka bacdi ku dhintay. dhismaha biriishka deegaanka dacar buruq oo gobolka Murudijeex ka tirsan waa lagu guuleystay dhamaystirkeeda. waxa la hirgeliyay biriish quwad qurux iyo adkaysiba leh oo dadka Soomaaliland wax weyn ka bedelaya isku socodkii dhinaca gaadiidka ee bulshada ku kala nool gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. dooxa dacar buruq marka uu maankaaga ku soo dhaco waxaad xasuusanaysaa dhibaatadii joogtada ahayd ee uu ku hayay shacbiga dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u kala gooshaya ama u kala socdaalaya gobolada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. biyaha quwadda leh ee togan maraya ayaa galaaftay nafaha dad badan oo reer Soomaaliland ah waxaana ku burburay hanti xooga taasoo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhiigbax ku ahayd. dadyowga jidkan maraya ayaa waqti badan kaga lumi jiray xilliga roobabku da'ayaan. qof kasta oo deegaanada Soomaaliland u kala socdaalaana waqtiyada roobka ee raxmaadka alla da'ayaan wadnaha ayuu furta ku hayay isagoo xasuusan dhibaatooyinka dooxyada rogmanaya ee jidka isku xidha caasimadda Hargeysa iyo magaalo xeebeedda Berbera. maxaa khatar lagala kulmi jiray dooxa dacar buruq waqtiyadii hore? waxaan waa dooxyada ugu biyaha badan leh mara gobolka Murudijeex. dooxyada ugu biyaha badan leh biyaha mara weeye marka waxa weeye dhib badan ayaa lagala kulmi jiray. dhibtaasoo ahayd bilmataal hadduu imika kala roobku soo doo saacadan aynu joogno oo 4 goowa waxa baabuurta ku socota dariiqa maraysa ee bariga galbeed u kala socda marka halka laga joojiyo controlku yahay control halka laga sameeyay laga joojiyo askarta aynu joojino habeenada qaar buu 3 habeenimo ama 4 ama waaguba ku bari jiray roob damoodaaya waana doox aad u weyn oo dhowr meelood ka yimaada halkan si ka yimaada halka buuraha hoostooda ka yimaada ilaa wixii cadaal ka sokeeyo ka yimaada dabis ka yimaada. dooxaasi marka la eego maal iyo nafba Soomaaliland lagama siixan jirin ilaa madaxweynaha ilaa qofka ugu hooseeya ee halka jooga dacar buruq ilaa madaxweynaha inta baabuurta la fasaxayo heegan buu qof waliba ku jiri jiray. qof buu qaaday dad baa ku dhintay xoolaha ku dhintay. waxaan nagu soo martay mararka qaar dad kooma ku jira oo aanu sidaan Ilaahay u bariyeen inaanu dooxaas noqdo aanu ku noqo Berbera kula noqo qofka bilaadanka. dhibaatooyin fara badan boo raxmadda Ilaahay nagu haysan raxmadana waa loo baahan yahay
intaan mas-uulka ka ahaa labada doox marka laisku daro waxay noqonayaan dadka ku dhintay ilaa 50 qof bay ku noqonayaan dadka qaar baa saddex walaalaa iyo laba walaalaa ayaa ku jiray oo habla u badan oo rag u badan family dhan baa halkan ku dhintay oo saddex walaalaa iyo mid adeerkooda oo afartoo maalin ku wada dhinteen marka ilaahay u naxariisto in cid alle ciddii ku dhimatay ciddii wax ku yeelooday iyo ciddii maal kaga baxayba cidda dhimatayna allah ugu naxariisto ciddii maal kaga baxayna ilaahay ciyi ha siiyo dhib badan oo la soo koobi karayn ayuu bahalkaasi ku hayay nagu hayay oo dadka ilaalintoodu nagu hayay oo heeganka nagu jirnaa buu nagu hayay oo wuxuu nagu hayay macnaha dee naxdin marku soo dhaco qof waliba uu nixi jiro reer somaliland waxa dhicaysa maraan anugu ka shaqayn jiray dekada berbero kale iyo waxaanu kasii fikiri jirnay markaan isbaa khamiisaa taga hargeysa dooxi kasii gaara dacar markuntaan soo xidhan dhakhtar lagu wado waxaan kugu dhi halkaa joojin jira qaar baa iyagoo jooga foosha ku qaban jirto lagaga umulin jiray meesha dooxan agtiisa halkaana qaar baa lagaga umuliyey halkaana qaar baa lagaga umuliyey dad xataa gawaadhi shil baabuura gawaadhi la dhacday oo dhakhtar lala gaarayo oo kooma ku jira ayaa halkaa waxaan kugu dhi dhiigbax uguba dhiman jiray maxaan ku dhahday amase dee dirqi lagu gaadhsiin jiray cisbitaalada bismillaahi raxmaani raxiim culayska ugu badani wuxuu ku dhici jiray maamulka iyo biliiska oo baabuurtaas xoog ka hor joogsan jiray midda kale dee markay hargeyso oo dhammi halkaa isugu timaado magaaladiina 2 hudheel ama 3 hudheel leedahay cuntaa laga waayi jiray oo roodhi baa laga waayi jiray oo dadka culayskoo dhan wuxuu ku dhici jiray xaafadaha xitaa la seexan jiray roobku wuxuu soo dhici jiray baa marmarka qaar laga yaabaa 12 duurnimo waxaana 3 habeenimona waa laga talaabi jiray ilaa intaa culaysku magaaladu mu saara waxa igu xasuusta badneed waxa ahayd maalintan halkan ka joojinay niman lo wada oo sawaaqiina oo 2 nina ay doonayeen inay dooxa geliyaan lo'dii ay ku tallaabiyaan inay leeyihiin waxa weeyaan way dabaalanayaan lo'dan labadii nin baanu qabanay lo'dii baan dib u celinay labadii nin baanu qaban kari weynay nin ka mid ah galay daaxi markuu halkaa bartanka maraya abuu xagga u kala jeediyo birihii kaabadaha ayuu qabsaday markuu qabsaday buu kii kale ka daba galay annagoo eryanaynu galay deedna xagga saru ka maro labada logood buu isugu dhufto intuu laalaadiyey buu kii kale birta haystayna kusii dhufto labadiiba meydkoodaan ka soo qaadnay meel halkaasoo xidhan oo biyo xidhan ahayd xoolihii baa la sii daynaya dad baa raacaya amba dad baa magaalooyinka tirooyin kaloo kala tegaaya magaaladii nin ku luqays odhanayaan halkaasi waagu ugu beryay carruurta yaryar maanaan ku aamini jirin marka cirka daruur bay raxmadu da'ayso waanu ka hor yaac jiro meelaha madadka xitaa inay ku soo ciyaaraan maanan ku aamini jirin dooxa magacaygu waa Salmaan Cismaan Xasan runtii hataa dooxan aad wax iga weydiisay dad badan oo Soomaaliland magac iyo maamuusba ku lahaa yaa naf iyo maalba ku waayay kullay daaki fara badan iyo baqdi fara badan baan kala kulmi jiray oo nin hanti fara badan sida baan ahay marka daakiga iyo baqdin biyaha xaggooda labadaba waan ka cabsi qabay runtii dhibaato badan bay ahayd aad iyo aad bay dhibaatadeedu u badnayd 2 checkpoint baan lahayn 2 control si aan dadka lafooga ugu badbaadino 2 xalig baanu xili jirnay oo heegan baanu ahaan jirnay dhibaato badan oo jirtay rag baa nagala dagaalamay xataa meesha oo la jiiray ka bacdi ku dhintay deena oo meydkooda 9 maalmood dib u raadinay ummadda dhibaato badan bay ku haysay ciidanka dhibaato badan bay ku haysay habeenii maalin waan soo jeedi jirnay oo lafaha dadka ayaan badbaadin jiray 28 bishii labaad ee sanadkii 2019 ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi dhagax dhigay mashruuc muhiim u ahaa shacbiga iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo ahaa mashruuca lagu dhisayo jidka Berbera Corridor oo ay ku jiraan bariisho ahmiyad weyn u leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mashruucan miisaan kale waxa jamhuuriyadda ka taageerayay dawladda isu tagga Imaaraadka Carabta oo Soomaaliland ay wadaagaan xiriir saaxiibtinimo mid iskaashi iyo dane wax isweydaarsi halkan waxaynu isugu nimid inaynu markhaati ka noqono dhagaxdhigga dib u dhiska iyo ballaarinta jidka Berbera Wajaale oo loo yaqaano Berbera Corridor jidkan dhererkiisu wuxuu noqonayaa 250 kilomitir wuxuuna Soomaaliland ku xirayaa Ethiopia dal dhaqaalihiisu xawli u korayo dadkiisuba ka badan yahay 100 milyan laga yaabo inay soo socdaan in gaaro 120 milyan kuwaasoo u baahan marinbadeed
oo aynu doonayno inaynu kula tartanno dowladaha jaarkeena inaynu qaybteena ka qaadano u adeegiska boqolka milyan ee Ethiopia iyo la shaqayntooda 29 Abriil gugii 2021 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo garowsan ahmiyadda birishadu ay u leeyihiin habsami socodka bulshada isla markaana ah qorshe lagaga hortagayo khasaaraha dooxyada ayaa kormeeray dhismayaasha birishada laga binaynayo jidka halbowlaha ah ee isku xidha marsada Berbera iyo caasimadda dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Alxamdulillah aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa shaqaalaha dooxan ka shaqaynaya injineerada leh shaqaalaha leh dhammaantiinba aad iyo aad baan idinku ogaadinaynaa oo laydinku mahadnaqayaa shaqada wacanay qaranka u haysaan runtii waa wax lagu farxaa maanta inay marayaan birishadii halkan oo aynu haddii la sanadkan aakhirkiisa birishada kuwii ugu waaweynaa ay wada dhammaan doonaan 28 bishii labaad ee sanadkan aynu horaantiisa ku jirno ee 2022 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jaray mashruuca la mahadiyay oo laga dhameystiray biriishka degmada Dacarburuq oo khatar ku ahaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland bulshadiisa iyo hantidooda. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta waa micraajkii oo waa maalin barakaysan oo ummadda islaamka badankooda waa fasax inagana waxay noogu beegantay maalinta khayrka badan ee nu furayna bridge-kan waxaynu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dowladda imaaraadka carabta oo inoo hirgelisay mashaariic badan oo aynu in badan u soo joognay nadhalkeedii ballamihii ay u qaadeen inay ku taageeraan Somaliland oo dekada iyo airportka iyo wadadaniba ka mid yihiin oo runtii ah deeq walaaltinimo oo mucaawino walaaleed ah shirkadda dhisaysa dekada waa shirkadda mushteriga oo heshiis wada galay mushtar laakiin hawsha garoonka iyo wadadan waxay lagu caawiyey dowladda imaaraadka carabta mashruuca intaan leeg dowladdaas dadka way nooga sultan tahay dadkoodu oo way nooga dhow yihiin dowladdooduna way nooga sultan tahayoo waa dowladdii intaasoo mucaawinayna siisay iyo wixii kale soo raacaba aad iyo aad baynu abaalkaa ugu haynaa Somaliland dadkeedu iyo ummaddeeduna abaalka way guddaa Soomaalida waxay tidhaahdaa bawdiyo rag maalmo mid baa qaawanay haddii maanta wax ka yar xun yihiin Soomaalida xagga dhaqaalaha insha allahu waynu gudi doonaa waa hawl inagu deyn laynoo galay oo walaaltinimo inoogu maqan biriishkan laga qotomiyay dooxa ugu biyaha badan dooxyada xiriirsan ee ku yaala dhabaha isku xidha caasimadda Hargeysa iyo masrada Berbera maxaa laga faa'iidi doonaa maxaase lagaga reysan doonaa dibtii hore ugu hayay bulshada Somaliland furahantii imika waxaan ka reysanaa biriish baa la sameeyay alxamdulillah ummaddu way dul maraysaa togyaan ku celin jiray dadka waa laga reysanayaa annaguna waan ka lasanaa dhibtii badnayd ee na haystay maanta waa raaxo maanta raaxa lagu jiraa wata la daawanayo dawladda iyo hay'adihii inoo sameeyay cid walba oo u mahadnaqaynaa maanta waa lagu raaxaysanaya maantana dee waa ilaahay mahadii wata la dhisay wata la qurxiyay kulli dee waa laga reysanayaa oo dee dawladda Somaliland iyo madaxweynadeeda iyo maxaan ku dhahay cidii kale ee kambaniga ka qayb qaatay dhisayba ilaahay xasanaad ka siiyo ilaahay maxaan ku dhahay ha barakeeyo maanta waxaanu ka filaynaa de mar kastaba in la marayo habeen iyo maalinba hadda waaba ku naxayba oo jidadkii markaan halkaa ka arkay ayaanba aad ugu farxayba waxaan ku warbada xariga nalooga jaray koodi mundo fiican baa naloo dhisay waxaanu rajaynaynaa mid tayo leh in ilaahay nooga dhigo de maanta waa maansha Allah waa maalin wax lagu farxo waa wax ku dayasho mudan way idinka arkaya alxamdulillah rabbil caalamiin baanu leenahay waxa weeyaan inta waxaanu leenahay hadii aanu nahay maxaan ku dhahday degmadan Laasgeel ummadan ku nool iyo de in kastaba ilaahay baan horta u mahadnaqaynaa marka hore marka dambana waxaan leenahay inta uu horeeyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo maxaan ku dhahdayay wixii muwaadila iyo intii ka qayb qaadatay ee samaysay iyo intii shaqaalaha ka ahaydba waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro waana maasha Allah oo wax lagu farxaa runtii aad iyo aad dadka ka hawlgalay dad dawladda soo abaabushay
dhammaan aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay waddada alxamdulilah xitaa waddada laftigeedu horumarinta somalilan waa ka qayb waxaan leenahay inta hadhayna halkaa kasii dhaqaashiya insha allah imisaan aduu gaadhigan wadeeyo waddadan ma isticmaalaysa u taraagaysay anigu muddo dheer baan waddadan taraag ku ahaa maraan rakaabahay maraan gaadhi wado intaba marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa shirkaddaa noo dhistay iyo madaxweynaha xadhigga ka jaray iyo dhammaan shacabka somalilan ka qayb qaatayba aad iyo aad bay u wanaagsantahay waddadan alxamdulilah oo wax ilaahay loogu mahadnaqo maanta waxaynu haysanaa dariiq raaxa leh qof ilaahay dilaya mooyaane qof wal oo wata gaadileeda waxaan mar walba faraynaa inaanu naano markaa magaalooyinka maraysaan gawaadhida speedka dhima war dhima waanu naana intaa waanu la hadalnaa inkastoo aanay dadkeenu caqli badan lahayn aanu garanay qofka magaalada soo gashay laakiin maanta hadduu ilaahay nagu samay biriishkii dacarburuq iyo kii oo barkhadle iyo biriishadii dalkeenna oo walaagsan iyo kana ugu dhibaato badnaayo la dul marayo lagu raaxaysanayo ilaahay mahadii baanu leenahay waa ilaahay mahadii waxaanu leenahay waa intanoo lagala sii dhowaadaa insha allahu bidmillahi kariim maalin aan maanta ahayn iyadoo layna ictiraafay oo aynu adduunyada u kala gooshaynana wayna soo maray sidoo biriishkan ina soo maray waxaad moodaa inuu biriishkan inagaga xidhnaayo kale ictiraafkiyo raadkiisii waanu haynaa haddana biriishkaas lanoo sameeyey insha allahu kaana waynu gaari insha allahu bidmillahi kariim Kalkeenina dhamayne